xisbiga nabadda iyo horumarka oo magaalada Muqdisho maanta shir weyn ku yeeshay ayaa waxa ay ku dhawaaqeen gudoonkii xisbigaasi oo holaha xisbiga halkaasi ka sii ambaqaadi doona waxaana xisbigaasi maalintii shalay ahayd lagaga dhawaaqay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka wariyahayaga Maxamed Cabdiqaadir Daahir ayaa faahfaahinta qodobkan eegaya kadib kulan ballaaran oo ay isugu yimaadeen xubnooyinka kala duwan ee xisbiga nabadda iyo horumarka oo maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho ayaa waxa laga dooday muhiimadda qaab dhismeedka iyo waliba sidii loo soo dooran lahaa gudoomiyaha koowaad ee xisbiga nabadda iyo horumarka xubnaha xisbiga ayaa si wada jir ah isugu raacay in gudoomiyaha xisbiga loo magacaabo Sheekh Maxamuud si uu wax badan uga bedelo howlaha uu qabanayo xisbiga muddada 3 sano ee soo socota sida ay saxaafadda u xaqiijisay Sagaal Cabdirasaaq Isaaq oo ka mid ah xubnaha golaha dhexe xisbiga nabadda iyo horumarka 18 Abriil 2001 la soo gabagabeeyay shirweynihii koowaad ee xisbiga nabadda iyo horumarka shirkaas oo muddo 2 maalmood ka socday hoteelka Saxnaal ee magaalada Muqdisho maalintii labaad shirku wuxuu guda galay qaab dhismeedka xisbiga intii ugu muhiimsanayd iyo doorashadii guddi doorasho oo shirweynuhu magacaabay ayaa soo qaabeeyay doorashada gudoomiyaha iyo golaha dhexe marka iyadoo ergaduna ay ansixiyeen soo jeedinta guddiga doorashooyinka kadib wada tashi ay sameeyeen doorashada ayaa waxay soo bandhigeen in gudoomiyaha xisbiga nabadda iyo horumarka uu noqdo Xasan Sheekh Maxamuud kala gudoomiyaha la magacaabay ee xisbiga nabadda iyo horumarka injineer Xasan Sheekh Maxamuud oo isna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in uu ka shaqeyn doono xilliyada ugu horeysa sidii uu soo dhameystiri lahaa qaab dhismeedka xisbiga dadkii aan u baahnayn dhexe lama soo wada magacaabin waxaanan u raafnay tartiib in loo soo magacaabo ayadoo halka xisbiga uu gaarayo ee mujtamaca bulshada dhexdeeda lagu salaynayo soo magacaabistaas iyo dad ku habboon qiyaadada ama hoggaanka cusub ee xisbigan cusub ee raadinaya Soomaaliyada cusub marka sidaas ayaa asaguna uu ku imaan doonaa inta dhiman muddooyinkan ugu soo howlaha ugu waaweyn xisbigu ku mashquuli doono waxa inuu dhameystiro dhismaha qaab dhismeedka xisbiga ka bacdina in uu mujtamaca ama bulshada Soomaaliyeed ee gobolada iyo qaybaha kala duwan ee Soomaaliya degan in uu gaarsiiyo fariintiisa si uu uga helo ictiraaf iyo taageero annagu ictiraafka iyo muhiimad nooma aha inaan ka raadino dibadda waxa muhiimadda koobaad noo tahay ictiraafka iyo taageerada inaan ka raadino dadka Soomaaliyeed dhexdeeda taas ayaana noogu filan aqoonsi iyo maxaan ku yiraahdaa sharciyaduna waxaan aaminsanahay Soomaalida dhexdeeda inay naga jirto doorashada ay xisbiga nabadda iyo horumarka u doortaan gudoomiyaha koowaad ee xisbigaasi injineer Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo beegmaysaa xilli maalintii shalay magaalada Muqdisho laga dhawaaqay xisbigaasi Maxamed Cabdiqaadir Daahir TV qaranka Soomaaliyeed